kulanti wacan wanaagsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah idinka soo gudbinayno studio-na ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. barnaamijkan isku soo fool leh ama waraysigan soo socda ayaa daawadayaal waxaanu kaga hadli doonaa sida wararka aad kula socoteen iyadoo dood ay ka socotay baarlamaanka UK doodaasi oo markaasi lagu falanqeynayay mowqifka dawladda Ingiriisku ama dawladda UK ay ka taagan tahay aqoonsiga ama ictiraafka Somaliland iyadoo xildhibaan Ingiriiski uu soo hadalkaasi soo jeediyay amaba uu soo bandhigay in arintaasi laga doodo ayaa doodii waxay isugu soo biyashubatay in aqoonsiga Somaliland uu ku xidhan yahay dawladda federaalka ah iyo Somaliland oo wada fadhiista oo iyagu ka heshiiya isla markaasina wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan UK ayaa iyaduna haweenadaasi waxa ay cadeysay oo ay sheegtay in doodaasi ay noqonayso mowqifka UK in Somaliland iyo dawladda federaalku ay soo fadhiistaan oo ay arintaasi ka heshiiyaan sidii mowqifka UK ay horeba u ahaan jirtay oo aanay waxba iska bedelin xildhibaanada Ingiriiska oo iyagu gaadhay 650 xildhibaan ayaa doodaasi Somaliland laga hadlayay waxa ka soo qayb galay sida sawirradaba aad ka aragtaan xildhibaano tiro yar oo gaadhaya 30 xildhibaan haddaba waxaanu eegi doonaa bal doodaasi iyo waxa ay keeni karto waxa kale oo eegaynaa doodaasi oo ku soo beegantay iyadoo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ay haatan ku sugan yihiin wadanka Ethiopia waxa kale oo aynu barnaamijkan ku eegi doonaa dhinaca kale qaraarkii maxkamadda sare ee Somaliland ee ay ku gaadhay in la furo ururo cusub oo loo diyaar garoobo diiwaangelinta ururadaasi isla markaasina doorashooyinka soo socda ay ka qayb galaan arrimahaas oo dhan ayaa daawadayaal waxaan khadka telefoonka ee magaalada London aan kula xiriiray oo aan ka wareysanaya Dr. Saciid Xariir Dr. Saciid Xariir marka hore ku soo dhaw Somali American TV علي آديات بانو دوهي آديات بان يكون سلامية أديك إيو دمان انت دعوة تلفزيون عالمي سومالي أمريكا آديات بان يكون سلامية الله يسلمك وهاك ما تسند مركله أن سؤاله إنه قد قال له إنه كل بلاد دونه كوا لنا عدود حلمان هذا برلمان كا UK أو يجو ما أنت كدودي أقونسيا أما اعترافك سوماليلاند يضو هاتن لسوق بجبي ضد داسي أن مركو ورثة ضد عين كاسو كلا أو كذا على UK ما مركو ورثة بس عيدو مثل مرة بدن بالسوق هذا علي آديات بعد إن أذوق بعد ستة سؤال شاسي إن رنتي أدي أنتو سؤال شو قالوا ما همركي ورثة عليو ضد عنو كلا كذا على برلمان إن مدبا رج برلمانتيرينا إن هو بدنا جوال كويل أشكا عاصمة تاعي كارنف MB يدا لقى صدرته MB عانى بتشيله ولا يرادو إن آلان مايكل أو إن بدن كدو تشيله برلمان كإنجليز كا اعتراف كسومالي لأن إن بدن دودنا عنو كلا كقبتي برلمان كا وقت يدي توني بلير دولة DC دولة كونيو يو waxaan jeedaa kuniyo 1979kii uu bilaabay doodii ugu horeysay inuu baarlamaanka soo dhigo laakiin doodani waxay kaga duwan tahay intan imika magaranaysa conservative-ku ay talada qabsadeen waa markii ugu horeysay ee dood noocan baarlamaanka xisbiga conservative-ka talada haya oo baarlamaanka hor keeno marka lama oran karo waa tii ugu horeysay laakiin xisbigan nimanka talada haya ayaa ay tahay tii ugu horeysay noocan ay qabtaan laakiin Labourka xisbiga Labourku sidaan hore u sheegay dhowr jeer hore ay dood caynkana baarlamaanka Ingiriiska hor keenay wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan UK oo gabadha waxa ay sheegtay in doodan ay soo biyashubanayso arrinka ictiraafka Somaliland in mowqifkooda hore ay ka taagan yihiin UK mowqifkaasi oo ah in dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ay iyagu ishor fadhiistaan oo ay arintaasi ka heshiiyaan arinta marka sida loo dhigo oo kale sida u aragtaa Dr. Saciid runtii laynkaasi waxa weeyaan layn ay bulshada caalamka inta badan ay taagan tahay haddii ay tahay dawladda Mareykanka
haddii ay tahay dowladaha africanka iyo african unionka hadday tahay dowladaha carab league ku jira hadday tahay ururka islamic conferenceska united nationska caam ahaan caliyow dunida inta badan iyo European-kuba waxay taagan yihiin in arrinta Soomaalidu ay ka goodo in Soomaalidu wada hadasho oo ay isaaf garato oo waa xogeen positionka officialka ee dowladda Ingiriisku taagan tahay ayay tilmaantay oo ay ku celisay waxaana keentay su'aal kulliba laga weydiiyay arrintan ixtiraafka ee parliamentarianka Ingiriiska ay baarlamaanka soo dhigeen marka waa positionka officialka ee dowladda Ingiriisku taagan tahay runtiina waa arrinta inta badan Soomaaliland lagu cadaadinayay ee dowladdii Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo ka aqbalay dowladaha Westernka oo badnaadaan cadaadis kaga imanayay in ay dowladda Soomaaliya hor fadhiistaan oo heshiiskii la dhacay 2015 maxaan ku dhahaa UK markii la isugu yimid dowladdii Axmed Maxamuud Siiraayo waxay ahayd in ay soo fadhiistaan oo Soomaalida ay iyagu is afgartaan in Ingiriisku facilitate gareynay marka arrintaas waa arrinta loo noqonayo oo mar walba caalamkuna ay culays ku saarayaan Soomaaliland inay la hadasho Soomaaliya waa tahay wax ka iman karaan ayaan anigu qabaa waayahay iyadoo maanta ay munaasabad weyn u ahayd Soomaaliland oo ay filaysay in at least ama ugu yaraantii la soo hadal qaaday oo dood ku saabsan ictiraafka Soomaaliland lagu soo bandhigay baarlamaanka Ingiriiska munaasabadaasi ballaaran marka Soomaaliland loo eego haddana waxaad moodaysay in dabacsanaan iyo gaabis dhinaca xukuumadda uu ka jiro oo wafdi ama wakiilo u jooga Soomaaliland maanta oo kale UK aanay jirin iyadoo dadkii markaasi ka talinayay ictiraaf raadintu ay la socdaan madaxweyne Muuse Biixi oo dhamaantoodba haatan ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa su'aasheedu waxa weeye Dr. Saciid maxay xukuumaddu u dirsan weyday cid mowqifkaasi dhageysata oo goobjoog ka noqota UK-na fadhiisata caliyow runtii waa su'aal aad u muhiima waxay ku tusaysaa ahmiyadda iyo miisaanka ay aqoonsi raadisku la leedahay xukuumadda Soomaaliland ayay arrintaas wax badan ka iftiiminaysaa waayo waxay ahayd caawa in wafdi heer sare loo soo diro baarlamaanka haddaanu madaxweynaha laftiisuba iman waa Muuse Biixi Cabdiye Westminster Parliament oo baarlamaanka la yiraahdo waa hooyadii baarlamaanada dunidaba iyo debate vital oo muhiima oo Soomaaliland muhiim u ah in lagu hayo oo ah in Ingiriisku ixtiraafo Soomaaliland maanta waxay ahayd madaxweynuhu inuu joogo haddii aanu isagu iman karayn oo taali karayn waxay ahayd inuu wafdi heer sare oo soo diro baarlamaanka oo dowladnimada Soomaaliland ay baarlamaanka Ingiriiska ka muuqato haddii ay danaynayso xukuumadda kulmiye in Soomaaliland la ixtiraafo inay miisaankeedii caliyo muujiso oo wafdi heer sare loo soo diro gurtidii oo loo soo diro rag ka socda xisbiyada mucaaradka oo loo soo diro maxaan ku dhahaa wafdi ballaaran oo ka kooban xitaa salaadiinta oo wuxuu leeyahay baarlamaanku meel ay dadku ka dhageystaan publicii marti sharafta meel loogu talagalay uu baarlamaanku leeyahay oo ay ahayd markaa inay ka muuqdaan oo muujiyaan dowladnimada Soomaaliland dadka matala inay daacad ka yihiin Soomaaliland in la ixtiraafo inay meesha ka muuqatay debate-ka sidaad u arkayso shacabka reer Soomaaliland waa u helayeen calaamadii bay lulayaan in baarlamaankii bay hortaagan yihiin shacabkii waxa weeyaan abteed bay u hayaan laakiin xukuumadii iyo dadkii mushaharka ku qaadanayay Soomaaliland baan ictiraaf raadinayna caawa waxay fadhiyaan 4 kilo ama kilo meesha la yiraahdo looga taliyo baalaska looga taliyo maxaan ku dhahay Ethiopia waxay la cashaynayaan prime ministerka Ethiopia wax weeyaan arrintan waa shidan ama shidan ma ka muuqato dowladnimadii Soomaaliland caawa Westminster ama baarlamaanka ma fadhiya baatu looran karo waa great shame waa farxmo weyn waxaana ku tusaysaa inaanay priority-ga iyo ahmiyadda shacabka Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland ama dowladda Soomaaliland inaanay wada socon la kala socdo waayo marka nin Ingiriis oo parliamentarian uu maanta laabta u garaacayo ku doodayo in Soomaaliland la ixtiraafo Soomaaliland haddii ay tahay ergeyga gaarka ee aqoonsi raadiska Dr. Adna Aadan haddii ay tahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo shaqadiisu ahayd ixtiraaf raadin haddii ay tahay madaxweynihii dalka dowlad sii dhacaysa oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xukuumaddiisu ay ciriiriba ku jirto ay ka doorbideen inay la casheeyaan inay maaca
westminster fadhiyaan Waay. arrin aad u fol waaya waad mahadsan tahay aan ku weydiiyo su-aal kale markaasi oo ku saabsan dhinaca wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi ee haatan ku sugan sidaad sheegtay magaalada addis ababa ee waddanka ethoobia wararka qaar baa sheegaya dr saciid in safarkaasi uu daaran yahay in dowladda ethoobia ay doonayso in lagu wareejiyo magaalada saylac ee dekada saylac oo ay isticmaalaan oo ay ethoobia iyadu gacanta ku dhigto amaba ay maamusho wararkaasi ayaa indhawaalaba suuqa ku jiray oo socday maxaad se kala socotaa sababaha ay wafdigu halkaasi u tageen cali waa su-aal faytira waa su-aal aada muhiima aada iyo aada u muhiima in la isweydiiyana mudan ujeedada ilaa iminka xukuumadda somalilan waxyaabaha sida si guud soomaalida dhibaatada u haysata waxa weeye xukuumadaha soomaalidu ha noqoto muqdisho ta hargeysa iyo kuwa kaleba ha noqdaane transparencygiiba aada inoogu yar waa ilaa iminka lama shaacin lamana oga ujeedada rasmiga ee uu tegey laakiin mid baa jirta caliyow saddex arrimood baa isdul saaran mid waa mide waxaynu ogeyn xukuumadda maxamed cabdilaahi farmaajo hogaamiyey soomaaliya inay mar la soo qaaday inay jira 4 dekedood oo ay saylac ku jirto ayaanu ku wareejinaynaa ra'iisul wasaarahan caawa musabixi la fadhiya Abi Ahmed arrintaasi meesha kamay bixin mar walbana arrintaasi way taagneyd heshiiskaasina wuxuu ahaa heshiis saddexda dowladood ay wada galeen Eritrea Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya federaalku arrintaasi waa arrin ma garanaysa xagga dambe taalo oo yani waxa weeyaan xaaladeedu ay iyadoo taaganayno ogey arrinta kale ee waxa jirta qoraa Mareykana oo nin aad u caana isla markaana Soomaaliland u ololeeya maalin dhow soo hadal qaaday oo article ku soo qoray jaraa'idka Mareykanka inuu yiri waxa weeyaan dowladda Ethiopia waxay rabtaa inay xoog ku qaadato dekada waxaan ku yiraahdaa Sayla taasina arrin media ku jirta wigii ee la soo dhaaftay bay ahayd arrintaasina iyaduna xisaabta kulli kama maqna waxa kale oo iyaduna jirta oo waxba isku fuuqsada caliyo inaad wad la socotaa Ethiopia dagaal aad u qaraar baa ka socday ilaa imika walow la kala yar fadhiistay haddana siyaasiyan xaaladda Ethiopia meel aad u xun bay maraysaa meel burburay taagantay anigu sidaan aaminsanahay Abi Ahmed waa ku jiq dhinac walba uu ka soo xidhmay Eritrea oo isku haleynayo heshiis uu la galay oo la weerartay Tigreega way isku xun yihiin caawa sababtoo ah waa kii Oromadii sii daayay waa kii TPLF heshiis la galay hoosa waa kii madaxdii TPLF oo sii daayay nimankii amxaarada ahaa aad bay isugu xumaadeen Eritreana aad bay isugu xumaadeen marinkii uu rabay Eritrea inuu isticmaalo uu ka soo xidhmay kii Djibouti dagaal xun baa ka socda oo xaggan magaranaysa caliyo wadadan isku xidha Djibouti iyo Canfarta iyo Addis Ababa iyadana aad iyo aad waa colaad baa ka jirta dagaal ka socday colaad xun baa halkaana ka dhacday maanta aad uu rabaa wuxuu ka iibiyo amxaaradii iyo maxaan ku yiraahdaa Oromadii inuu yiraahdo maanta wax weeyaan waxaan doonayaa inaynu access aynu maanta inoo jilicsan heli karro oo ah inaynu dekada Saylac qaadano negotiation-ka ugu weyn horta halkaas u fadhiya laakiin waxaan uga digaynaa xukuumadda Somaliland inaanay marnaba iyadoo aan la tashan shacabka iyadoo aan la tashan maxaan ku yiraahdaa population-ka Somaliland dadka siyaasadda ugu matala salaadiinta caliyo dadka deegaanka ka soo jeeda Saylac iyo gobolka Awdal iyadoo aan cidnaba laga tashan in heshiis lagu galo in dekadaasi Ethiopia lagu wareejiyo xitaa inay facility ahaan u isticmaalayaan waa inay noqotaa arrin biiska la soo dhigo dadka deegaanka aad looga doodo dadka maxaan ku yiraahdaa siyaasadda ku jira Somaliland xisbiyada nimanka sheegta iminka walow ay urur iminka yihiin lagala tashado wax weeyaan wixii asatisa dekadu waa asat waxay ognahay imaaraadku inay bilaash iminka ku fadhiyaan caliyo dekadii berbera dekada Saylac in bilaash lagu bixiyo oo aynu weedaarsano waxa faraguudkooda waxaan u maleynayaa inay tahay qalad haddii arrintaasi jirto weeyaan calow waxaanu leenahay xukuumadda Somaliland kaleer ka dhigto arrintaasi ajandaha miiska soo saarto socdaalka halkaasi wuxuu yahay qodobkaas waa qodob muxuu kala u daaran yahay waad leedahay safarka ama socdaalka musabix marka Saylac laga tago wallahi marka Saylac laga tago siyaasadii geeska Afrika waa isbedelaysaa isbedel weyn baa ku socda
Ethiopia waxay ahayd wadanka ugu weyn xagga military-ga iyo security capacity building ka Somaliland ama waxa la yiraahdo dhismaha nabadgelyada Somaliland qayb laxaad la ay ka ciyaaraysay Ethiopia khalkhalka soo galay wadatashi uu magaranaysaa uu doonayo inuu ugu kurgalo kulliba kama maqna magaranaysaa Somaliland iyo mustaqbalka Ethiopia sidoo noqon doono iyo guud ahaanba geeska waayo Somaliland aad baa loo soo jumaya waxa soo jumaya wadamadii Turkiga China Mareykan oo u dambeeyay marka arinta geeska geopolitical geesku kulliba meeting ka caawa ka socda sababa arintaasina kama maqna calowsan waaye waxaan u gali doonaa dhinacii furista ururada si la socotay Dr. Saciid maxkamadda sare ee Somaliland dhawaan waxay soo saartay ama 2 maalmood ka hor qaraar markaasi ay ku sheegayso in la furay ururadii oo markaasi ay u diyaar garoobaan in ay isdiiwaan galiyaan bal marka hore aan ku weydiiyo qaraarkii laga sugayay maxkamadda sare imisa qodob ayay ka soo saartay imisay ka aamustay marka la eego gartii la qaadayay Soomaalidu waxay tiraahdaa gari laba nin kama wada qosiso iyo arintaasi helay ma xisbiyada markii hore diidanaa in ururada la furo mise qolooyinkii hore ee 46 xildhibaan ahaa ee iyagu dacwad u gudbiyay maxkamadda bal tafaasiil naga sii Dr. Saciid arrimahaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii waxa weeyaan waa arin in badan la sugayay bay ahayd in badan inagu raagtay ama dadka siyaasadda Somaliland dheedeeyo ku raagtay go'aanka iyo qaraarka maxkamadda runtii intii aanu ka filaynay way ka soo daahday aakhirkiisa go'aankii waa la soo jeediyay oo maxkamaddu way sii deysay go'aankiina runtii wuxuu noqday mid loo wada riyaaqay ma garanaysaa dadka daneeyayaasha siyaasadda Somaliland haddii ay tahay mucaaradka iyo waxaan jeedaa dadkii rabay in ururada la furo oo nanu ku jiray haddii ay tahay qolihii xusbiyada hore lahaa ee ururka imika noqonaya waa wadani iyo ude haddii ay tahay xukuumadda intaba waa loo riyaaqay laakiin runtii riyaaqaasi wax badan baa ku hoos jira cali oo maxkamaddu midwaa mide way u magaranaysaa xil qarisay oo way laashay arintii parliamentarianku ay ula tageen ee dacwadda ahayd oo waxba kamay soo qaadin oo ahaa xeerkii 2021 xeer number 14 ee ay ku doodayeen xildhibaanadu inuu xeerkaasi ansax yahay taa way iska dhaga marisay oo way laashay oo waxba kamay soo qaadin laakiin arinta vital ee muhiimka ee maxkamaddu inoo sheegtay waxa dadkii doonayay labada in la furo ururada ay iyo xukuumadda oo iyaduna doonaysay oo madaxweynuhu ku dhawaaqay in ururada la furo inay dareynayaan inay iyaga u janjeersantay waayo maxay ugu janjeersantay waxay sheegtay inay xisbiyadii furan yihiin qodobkii labaad waxay sheegtay in aan lagu galahayn maxaan ku idhaahdaa habkii lagu geli jiray xeerkii 2022 ee ahaa xeer number 14 oo ahaa in lagu galo golayaasha deegaanka kiitiina dabarkii ka furtay oo waxay u soo noqotay khamiistii dambe xeerkan ay yidhaahdeen waanu laalay ee ahaa 2021 xeer number 14 ayay u soo noqotay waxay yidhaahdeen dabarkii waa laga furay waana la qaban karaa oo si toos ah loo gelaya doorashada ma garanaysaa oo xisbi waliba uu ka campaign garan karaa marka yani qoladan mucaaradka ahayd ee doonaysay inaan xisbiyada la furan anigu waxaan qabaa riyaaqeen inuu ma garanaysaa noqonayo qosol ku jab oo aanu ahayn riyaaq rasmiya laakiin cidda ay tahay maanta go'aankaasi uu faa'iido u leeyahay waa laba qolo waa qoladii xukuumadda ee doonaysay in ururada la furo iyo qoladayadii ururada soo diyaarsatay ee rabay inay maxaan ku idhaha isbedel Somaliland ku keenaan oo ay ururo furtaan ayaan u malaynayaa inuu miisaanku in maxkamaddu uu raacayo qolooyinka ka soo horjeeda arrintaasi waxay ku doodayeen oo ay maxkamadda u gudbiyeen iyaguna in ama doodoodu ay ahayd in ururadan la furayo ay ka horeeyaan in la qabto doorashooyinkii dhinaca golaha guurtida iyo tii madaxweynaha kadibna xisbiyadu ay markaasi samaystaan ururada la furo baan u jeedaa marka arrintaasi candhuufta dib moo laqeen mise weli waxay taagan yihiin in guurtidii lasoo hormariyo iyo tii madaxtooyada arrintaasi waxa weeyaan runtii waa siyaasad jaban baan calo u arkaayo
dhinaca istiraatiijiyadda nimankan mucaaradka waa wadani iyo cudo waa laga horeeya xukuumaddu way ka horeysaa sidaan anigu qabo waayo waxay imanayaan technicality caliyo arrin farsamo imanaysa iyagu waxay taagan yihiin waxa weeyaan doorashada wuxuu xisbiyada iyadu laysanku wuxuu ku eegyahay bisha 12 December bisha Novemberna uu ka soo horeeyaa oo doorashadii madaxweynaha naga soo horeysa maadaama ay naga soo horeysa hal la qabto Decemberna waxa ma garanaysaa la qabanaya markaa taayadii oo ururadi in markaas laysankoodu dhaco la furo laakiin arrin yani aanay sinaba in laga maarmaan u noqonaysa ayaa hortaagan oo ah in cidda qaabilaysa waxa weeye commissionka doorashooyinka ee ma garanaysaa doorashada xilliga qabsoomisu sheegaya iyo qoladan ma garanaysaa ururada commissionka diiwaangelinta ururada iyaguna ay tahay shaqadoodu in ururada 6 bilood ka hor waqtigii laysanku ka dhacay imika maxkamaddu ansixisay maadaama maxkamadii tiri way furan yihiin ururadii commissionkii diiwaangelinta ururada iyaguna shaqo galaya labada commission marka ay shaqo galaan waxa la isla eegayaa siday u suurtagal tahay 2 bilood oo la isku xiga in Somaliland ay doorasho qabato iyadoo imika ka soo baxday 3 doorasho oo isku siskan Somaliland ma awoodi kartaa waxa imanaysa markaa teebaa suurtagal in la qabto already waxa soo horeeya oo maxkamaddu ansixisay ururadii inay furan yihiin bisha May 2000 iyo maxaan ku idhaahdaa 22 kan aynu ku jiro therefore maadaama technically la geliyo farsamo ahaan ururada tartankoodii tii madaxweynuhuna ay inoo dambayso waxay noqonaysaa in laga furiyo horta tan ururada isla markaa waxay u badan tahay caliyow dawladuna ay calculate garaysay inay farsamo ahaan noqonayso in doorashada madaxweynaha dib loo dhigo maadaama dib loo dhigo madaxweynaha doorashadiisana xisbiyada laysankii ay ku doodayeen halkaas ku dhimanaya oo waqtigu wuxuu dhacaya doorashadii madaxweynaha oo la kordhiyay iyo caliyow tii ururada oo la furay marka meel ay dambo ku meeraysan karaan in ururadan wadani iyo cudo urur noqonaya meel dambo ay cuskan karaan ma jirto arrin farsamo ayaa ka soo xiraysa doodooda oo dhan oo ah inay imanayso in ay commissionku sheegaan siday suurtagal u noqon karto ama aanay awoodi karin waxay oran karaan abaaraha xitaa jira waxyaabo badan oo kala la sheegi karaa jira Somaliland oo naqanaano duruufaha ayaa had iyo jeer lagu sariyo jaangooya doorashooyinkooda marka waxaan u maleynayaa inay waqtiga iska luminayaan ururada xisbiga mucaaradka ee wadani iyo xisbiga mucaaradka ee ucud inay u diyaar garoobaan ururnimo siday u soo saar lahayn xisbiga noqon lahayn oo ay doodan jaban aan suurtagalka noqonahayn at the end of the day waxay imanaysaa iyaa go'aanka waxa yeelanaya commission iyo waan gartay waad mahadsantahay marka qaraarkan maxkamadda sare la eego sharci ahaan iyadoo la furay ururadii xisbiyadan iminka mucaaradka ah ee wadani iyo ucid xilligan iminka aad ila hadlaysid Dr. Saciid ma waxa lagu yeeri karayaa xisbi mise waa urur hadda waxa weeyaan Soomaalidu waxay jiraa waxaan la hurayn horaa loo yeelaa yani waxa weeyaan technically waxay noqonayaan urur maadaama waxaynu ka hadlaynaa waa muddo 8 bilood ka yarba ay doodani ay ku dhacaysaa at the end of the day imika markaa maadaama maxkamadiiba ay ansixisay in la furo ururadii oo sharci yahay oo maanta intaan Hargeysa tago aan xafladii dhigan karoon ururkaygii campaignkiisii geli karoon xafiisyadii furan karoon diyaargarowgii geli karoon ninka aan la tartamaya waa xisbiyada kale daneeyayaasha oo ku jiro kulmiye xisbiga xaakimka oo ku jiro wadani marka waxa la oran karaa calow imika yihiin urur imika hadaan is yeelyeelinde waa hagaag aad iyo aad baad mahadsantahay Dr. Saciid Xariir mahadsanid mar kale aad iyo aad baad mahadsantahay cali aad iyo aad baad mahadsantahay waa hagaag daawadayaal intaasi ayaan ku soo koobayaa waraysigaasi aan la yeeshay Dr. Saciid Xariir isagoo jooga magaalada London ee wadanka UK waxaan ku soo qaadanay waraysigaasi doodii baarlamaanka Ingiriisku ama UK ay ku soo qaadeen ama ay kaga hadlayeen موقفكooda ku saabsan aqoonsiga Somaliland waxa kale oo aanu kaga hadalnay socdaalka iyo safarka madaxweyne Muuse Biixi oo haatan ku jooga dalka Ethiopia iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo ugu dambeyntii oo aanu ku soo qaadanay qaraarkii dhawaanta ay soo saartay maxkamadda sare ee Somaliland ee ay markaasi kaga hadlaysay in ay ururadii furan yihiin oo markaasi la bilaabo xilligii diiwaangelinta ay
geli lahaayeen tan iyo kulankeena dambe daawadayaal waraysi kan oo kale intaan dib u kulmi doono waa cali xaraare oo dhammaantiin badi ka tegay sidaa iyo nabad gelyo